bishii May bartamaheedii dhammaadkii shirkii madasha Muqdisho waxa ay yeeray madaxweyne Xasan Sheekh ra'iisul wasaare Xamse ku-xigeenkiisa iyo 4 kamid ah madaxda dawlad goboleedyada odayaashaas waxay ii sheegeen inay isla garteen inaan tanaasulo oo ka haro tartanka aan ku jiro in waxaas oo olole iyo hawla u soo galay markii aan weydiiyay sababta aynu uga hadhayna Soomaaliya jagada muhiimka uga hadhayso waxay ii sheegeen inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ka codsaday inaan ka haro soo isagu u soo sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda muddo markaan doodii wadnay oo dhammaan ay ku adkaysteen inaan haro waxaan isku dayay inaan garnaqsado gubaabiyo ugana warramo danta weyn ee ugu jirta kursigaas ummadda waxaan u sheegay in 2016kii la iiga reebay kursigaas waxaan u sheegay inaanu 40 sanadood dambe ku soo noqonaynin bariga Afrika sababtoo ah wareegta laga dhigay